mid ka mid ah jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan UK ayaa waxa ay ka soo horjeesteen shirki ka dhacay magaalada Ankara ee ay heshiiska ku wada gaareen dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo waliba Somaliland. warbixintan waxa inoo soo diray wariyaha Somali Channel Cabdikariin Cali Kaar. shirkan jaraa'id oo ka dhacay galbeedka magaalada London ayaa waxa qabtay jaaliyada beesha warsangali ee ku dhaqan wadankan UK waxaanay jaaliyadu qaadaceen kana soo horjeesteen shirkii wada hadallada ee Soomaaliya iyo Somaliland ku dhaxmaray bishan aynu ku jirno magaalada Ankara ee wadankan Turkiga. Maxamed Xamuud oo ah afayeenka jaaliyada maakhir ee wadankan UK ayaa saxaafadda u akhriyay bayaanka ay beeshu ka soo saartay shirka jaraa'id. waxaan halkan ka soo jeedinaynaa cambaarayn annaga oo ah beesha maakhir ee warsangali oo degta gobolada Sanaag, Highland iyo Bari. waxaanu cambaarayn u soo jeedinaynaa shirkii ka dhacay dhawaantan dalka Turkiga. waxaanu kale oo waxaanu sheegaynaa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto in shirkii ka dhacay Turkiga uu ahaa shir qalad ah laguna degdegay una baahan in dib looga fiirsado. waayo waqooyiga Soomaaliya waxa dega 5 beelood, xaqna ma aha in hal beel wax laga weydiiyo. waxaanu dowladda Soomaaliya iyo caalamka mar kale xasuusinaynaa markii la israacay ama la isku daray Soomaaliya 1960kii lagu tagay 5 beelood ee aan lagu tagin hal beel. mar kale waxaanu caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa in aanay jirin meel aanu Soomaaliya kaga go'nay aanan heshiis kula gelin Somaliland kala go'a iyo burburka Soomaaliya aanuna nahay ummad Soomaaliyeed ilaa ay hadda. intaasi kadib ayaa waxa hadalkii qaatay waxgaradka iyo madax dhaqameedka beesha warsangali waxaana hadalladoodii kamid ahaa xero warsangali Somaliland kama